Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Wadaneeyaha Tuyu. Soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Maxaad ka taqaanaa ninka cusub ee noqday qofka ugu taajirsan adduunka? Elon Musk waxa uu noqday qofka ugu maalqabeedsan adduunkan 2021 isagoo haysta $185 bilyan oo dollar. Waa mulkiilaha shirkadda Tesla iyo SpaceX. Tesla oo soo saarta baabuurta korontada ku shaqeysa iyo shirkadda SpaceX oo soo saarta gantaalaha hawada geeyada yaxkambeedyada. Waxa uu darajada taajirnimada ugu sareysa galay kadib markii 7 January ay shirkadda Tesla kordhisay qiimaha saamiyada ay iibinayso. Waxa uu booskii ugu sareeyay taajirnimada ka saaray mulkiilaha suuqa online-ka ee Amazon Jeff Bezos, kaasoo caalamka maalqabeednimada ku hogaaminayay ilaa iyo sanadkii 2017. Shirkadda gawaarida korontada ku shaqeeya sameysa ee Tesla ayaa qiimaheeda ugu sareeyay yeelatay sanadkan 2021 qiimaheeda oo gaaray $100 bilyan oo dollar. Arrintaas oo ka dhigaysa shirkadda kaligeed mid ka qaalisan marka la isku wada daro qiimaha shirkadaha baabuurta soo saara sida Toyota, Hyundai, GM iyo Ford. Mr. Musk ayaa markii uu lagu dhawaaqay warkan si cajiib leh uga falceliyay. Waxa uuna yidhi waa arrin yaab leh. Hantidiisu waxay korodhay xilligii lagu jiray corona. Mr. Bezos ayaa sidoo kale dhaqaale badan ka faa'iiday xayiraadii coronavirus maadaama ay shirkadiisu Amazon internetka kaga iibinaysay dad iyaga guryahooda jooga. Hase yeeshee 4% ka mid ah ganacsigiisa ayuu siiyay xaaskiisii hore Megan Scott kadib markii ay kala tageen, taasoo Mr. Musk ka caawisay inuu kala wareego booskii taajirnimada. Intii lagu jiray sanadkii 2020 lacag dhan $140 bilyan oo dollar ayaa korodhay hantida Elon Musk sida ay shaacisay warbaahinta Bloomberg ee inta badan ka hadasha dhaqaalaha. Elon Musk waxa uu bishii November 2020 ka saaray booska labaad ee taajirnimada adduunka Bill Gates, sidaas ayaa uu ku noqday qofka labaad ee adduunka ugu taajirsan. Sidaas waxaa hostay wargeyska qiimeeya dhaqaalaha ay dadku sameeyaan. Fadlan hadaad la soo gaadhay muuqaalka dhammaadkiisa, fadlan subscribe saar.